badan magaalada Muqdisho uga socda diyaar garowga loogu jiro dabaaldegga munaasabadaha maalmaha xorriyadda dalkeena ee fooday nagu soo haysa. Guddiga qaran ee diyaarinta munaasabadahan ayaa wada abaabul xoogan iyo diyaarinta naqshad cusub oo wax badan kaga duwan qaababkii hore loogu dhigi jiray munaasabadahan si shacabka Soomaaliyeed ay wada jir ugu dabaaldegaan. wadooyinka magaalada Muqdisho waxaa laga dareemayaa isbedel xoogan lagu sameeyay gaar ahaan goobaha ganacsiga ee ku teedsan hareeraha wadooyinka kuwaas oo dhammaan lagu xiray calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo boorar lagu xardhay ama lagu muujinayo erayo ka turjumaya qiimaha maalmahan ay u leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. waxaa sidoo kale dib u habeen lagu sameeyay taalooyinka ku yaala magaalada Muqdisho ee loo dhisay muwaadiniintii naftooda u soo horay in dadka Soomaaliyeed u helo madax bannaani maanta ay haystaan. waxaana lagu beeray ubaxyo qurux badan nalal midabo kala duwan leh iyo sawirada madaxweynaha. sidoo kale waxaa dib u habeen lagu sameeyay si shacabka Soomaaliyeed maalmaha xorriyadda ay ugu dabaaldegaan waqti qurux badan ay ugu qaataan. wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada munaasabadaha, wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha, gudoomiyaha gobolka Banaadir, taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaha ciidanka asluubta iyo saraakiil ciidan ayaa xalay saqdi dhexe tagay xarumaha loo qorsheynayo in lagu qabto munaasabadaha iyo sidii u socdaan howlaha diyaar garowga ah ee la wada ayagoo socod ku soo maray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho. Basma Caamir, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ee maamulka gobolka Banaadir oo warbaahinta qaranka la hadashay iyadoo ku sugnayd taalada daljirka Daahsoon ayaa sheegtay in howlaha qabanqaabada ay meel wanaagsan u marayaan. sidaad arkaysaan waxaa la dhisay wadooyin ayuu dhagax dhigay gudoomiyaha, qaarkood ee laamiye la dhisay oo lagu maamuusayo lagu weyneynayo xuska maalinta 26 Juun ee Soomaaliyeed. waxaan sameynay calaameen magaalada oo dhan, dukaamada iyo goob kasto ganacsi ahna sidaad arkaysaan waxaa suran nal iyo calan iyo nalalkii quruxda badnaa ee loogu talagalay munaasabadda. waxaa socoto nadaafad campaign ah oo magaalada Muqdisho ah dhamaanta degmooyinka gobolka Banaadir ay ka sameynayaan iyo bulshadii isku duuban. gawaari lagu xiray codbaahiyaal ay ka daarnaayeen suugaan ka hadlaysay wadaniyada iyo wacyigelinta bulshada ayaa gaaf wareegaysa xaafadaha magaalada Muqdisho. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab oo warbaahinta qaranka la hadashay ayaa sheegtay in howlaha wacyigelinta ay ka wadaan 17 degmo ee gobolka Banaadir. laakiin anagu waxaan sameynaa hadda waa wacyigelintii, baraarujintii, qurxintii iyo bilicda goobta, taasoo aan uga goleenahay nalaynta magaalada. hadday noqoto wada ujeeda argooyinka doorka haweenka ay ku leeyihiin argadanaad arkaysid waxaa dhistay oo runtii taabagelisay gudoomiye Basmo. gabdhaha Soomaaliyeed mar walba waxay u taagan yihiin, waxay ahaayeen kuwo shalayna wadagooda xawtaaka xorriyadda ka qayb qaadatay iyo gabdho badan oo Soomaaliyeed sida Gudle Maxamuud iyo haween aad u badan Timir Cukaasho ahayd inay xabsiyada ku dhalaan. gabdho badan ayaa loo dilay, gabdho badan ayaa dhibaato soo martay. waxaan rabnaa marka anagoo taas ka duulayna inaan ka gudubno in la yiraahdo gabdhaha Soomaaliyeed dahabkooda ay gadeen ee cod ahaanna lagu xuso. saacado qura ayaa naga xigta dabaaldegga munaasabadaha, waxaana tan ugu soo horeyso ay tahay caawa oo ku beegan 26 Juun maalinka gobolada waqooyi ay ka baxeen gumeystigii Ingiriiska. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka.